daawadayaal haatan waxa dhinacayga taagan maareeyaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi oo maareeyaha suura galiyay in maanta halkan aan iskugu nimaadno furitaanka wajigii labaad ee DP World xafladii aadka u qiimaha badnayd ee uu soo dhaweynaya maareeye maanta iyo qiimaheeda inaad uga waranto iyo dekedii iyo DP World. Bismillahir Rahmanir Rahiim aad baad mahadsantahay Naciima runtii waa maalin weyn oo qaaliya ahmiyad weyn ugu fadhida Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxa dekada berber waxa ka mid noqotay oo loo ictiraafay inay ka mid tahay dekadaha waaweyn ee caalamka run ahaantii taasi waxa ku tusaysaa inaan ictiraaf ka raadin kareyn kaliya dhinaca siyaasadda waxaan maanta u badheernay oo aynu ka raadinaynaa dhinaca dhaqaalaha business solution marka maanta waxa weeye ictiraafkii u horeeyay in dekada berber ay ka mid noqoto dekadaha caalamka ugu waaweyn ugu soo rasiif gareeya maraakiibta waaweyn markab kasta oo weyn uu ku soo xidhan karaa maanta waxa kale oo maalin qaali ah ay ku tahay waxa maanta madaxweynuhu ku dhawaaqay in 600 oo kiya oo kale lagu daray oo dhismaheedu bilaamayo laga bilaabo maanta wixii ka dambeeya waxa kale oo muhiim ah oo xusud midan in containerkii u horeeyay ee u socday Ethiopia oo ay maanta ka soo degto markabka horteena taagan kaas oo ka yimid dalka Imaaraadka una socda magaalada Addis Ababa waa guul weyn oo soo hoytay Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay oon waliba dardaaraya dhammaan ummadda reer Soomaaliland inay soo dhaweeyaan cid kasta oo maal gashanaysa waxaan Ilaahay ka baryaa mashruucan inuu ahayn mashruucii koowaad ee uu noqon mashaariic badan oo kale ay bilaami doonaan waxa kale oo maanta la dhagax dhigay free zone-kii taas oo ka dhawaajiyay gudoomiyaha DP World inay leeyihiin asxaab fara badan oo ganacsato ah oo uu ku qancin doono sida ugu dhaqsaha badan inay yimaadaan halkan waxaan u hubaa 45 company inay iyagu halkan already sii registereeyeen oo markuu dhismahaas dhamaado ay iman doonaan insha Allah bidmillaahi kariim waxaan leeyahay waa guul soo hoytay dhammaan adiga iyo aniga iyo dhammaan reer Soomaaliland aad iyo aad ba mahadsantahay.